nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biirayn xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratul ixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nabigu tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nabigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxaa isu keena oo qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi illaah ilaahay dartii bay isu jeclaaday ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku jiraan innagu kaynu u soconna waa kan ku xiga marka dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaa keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu jooga imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysid laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulu ayuu nabigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliya ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaa indhihiisa ooye waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulu طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبغى حولين أي ويردي كباري مركه هروانين رجولة دريمة مركه لبادنا نلاش عادي قاعد تبدأ رجع هنقولي بدن أو دكتور هادية ثاني وعكسها ننسى إلى صوت وطي رجل ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسل إذا gabadhani magac iyo maamuus upper classka hadday ka tirsantay oo almasire hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii akhaafu allah innii akhaafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanaya ilaahay dartii uga tegey dad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka hadhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yani iyadoo practicala markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practicala ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qola socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guriguu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday
hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay. Looking at their faces illuminated by the flames, Jesus asked, "Whom do you seek?" البابدور دم ويحد وراودته التي هو في بيتها راودته وضون دون طيبالي المراودة سكة واحد حدتي سكة سنوي هلي لهيد وحكى له الله الشامي وغلقت الأبواب البابدنا ويحد لما أورا غلقت واحد حدي انت أتكين كريسي ومالو أمن دريمي كريو أيه جايستي كدبا waxay ku tiri hayta lak soo dhow adan diyaar ku ahay bayla inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadhu xishoodun baa ku jira inta badan ragga guri badan oo waxa kale ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya gabadha lafteeda markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyada sayid u ah waa addoonkeeda dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariibkuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad soconaysaa dee malaha waad fasaxanta laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad sira dhudhubayaan ceeboobin baad sileedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxiga maaha ama meelaan cidiba kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo nabiyullaahi muusa nabiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiyo reerahoodii waa laga keenay meelaan cidina ka garanayna waa addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayna buu jooga waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhabi jooga waa ma guursan reer male oo ninku hadduu reer leeyahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer male idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 mas'alo tiriyaayo uu leeyahay waa dawaacu zina baa qisadata ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbi axsana matwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun muxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso إلهي قفك مؤمن كاه يتعود قفك مؤمن كاه عادوا إن أنا حوجي سقونا كل صنانين ربي إنه مجال صدق وحكسته إنه ربي مجال صدق إياك نعبد وإياك نستعين إلى وضعك كلمة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التعود حمورا حلي معاذ الله إلهي بمجال جلي وحانوا تلمامي إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي الضمير كينا ضلوا علسه وإلهي وين معيو قد ويقصو صاري ونبتي ربي يقصو صاري النعمة نسيي مع سيدي سواه بالقدي ماي يعني سيدي هذا بقى توقف واحد قصية قفك ما تشعلان إسا وأنا كاد أنا سقاب إلى هواء توقف واحد قصية ما تشعلان إسا قفك مركا هدو قلد هي اللي بقوليه هاي هدي أنا دو حبط طريق كريم على الأقل أكتاد لو حمن ماي كور قفدو واحد قصية أو وحي وقصية أدو أديك 6 ساعات ساقا ودي بلاهي هذا تكو حين هذا نوام حوالين وقفح
qofaad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqanna ee ilaahay kula dhaqanna waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalo nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaada allahi innahu rabbii axsana mahwaaya innahu laa yuflixu aalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiyeen daalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramay akrimii mathwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto in xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mathwaaya akrimii mathwaahu waatii uu yidhiye waa axsana mathwaaya buu leeyahay degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmi maayo buu leeyahay innahu laa yuflixu aalimuun idan nabiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuub buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lah xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku hayta laka soo dhaaf markaan xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog u qabato xal kale markaa muu hayo wuu cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsadu isku day isagoo ordaya iyana ay eryayso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeen arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana wa cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninkan reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxaysa cidi garan mayso haddaad boqor uu xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladi lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsihi faاstacsan bay tiri walain lam yafcal ma aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la dulleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo
ayaa wax walba ka xun buu leeyahay saa daraaddeed wuxuu leeyahay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badaya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahay ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigood iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeyahay akhirka hadday dhacdo taasina wax magaratadaan ku biiraya yaa jaahila qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa intaad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad uga abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahy fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsooniduu dhowrsanaadaa dariiqaa keentay u furtay haddaba ayuha alaxiba nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya man yadman lii bayna laxyayn wamaa bayna rijlayn yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa ii damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa waa carabka iyo farjiga nebi maxamed baa wuxuu leeyahay kumaa damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahay adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan waa ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idin